بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما سومالي وين وائد السلامي ومركلة برنامج كي خصوص فنكي هوري يوتيوب كأبواشولي فضلا عداد نقول عصبتك سبسكرايب نوت لايك نوت شير نوت كومنت تيجي وانو مهم انت درادي barnaamijkayga wuxuu maraayay xusuusta fankii hore qaybtii ku soo biiristi kooxda iftiin aniga shooli ahaan aan ku soo biiri horaan idinku sheegay ku soo biiristaas kooxda iftiin koox caadiya ma ahayn kooxda iftiin koox Soomaaliya ma aha Muqdisho iyo ku ag iyo xaafadda imaan Soomaaliya dhan koox laga yaqaan yahay macallimiin waaweyn oo wadanka dadka jooga muusikiistaan laga ictiraafana ay joogeen mar horena waa idin sheegay mar kale ku celinaa carabkayga kama daalo Axmed Cabdi Iikar wuxuu ahaa ninkii gacanta iga sii macallinka organistihiina waay oo iftiin organka u tumay waa ku mahadsan yahay macallinka la'aantiis waxa uma noqdeen shooli ninkii gacanta weyn iga sii u ahaa waxa intaas ii dheer kooxda iftiin meeshaydii aan rabaa inaan kasii amba qaado markaan iftiin ka hadlayo koox waxay ahaayeen aad macnaa oo loo ictiraaf bal waxaa dheeraad ah kooxda iftiin inay ahaayeen macallimiintii dalkan ugu qaalisanaa macallimiintii wadankan musician looga dambeeyey hadda waxaa ka mid ahaa Sugulle Jerry محمود عبد الله جيري وأصير دقو واجوغا ونولي ما شاء الله ولي والجماعة دقو معلم واحد شركنولي شنكر الله أكبر افتن دتك أو أجيب سنة أو صومري هاي مع اللي سقول شركنولي إيه شنكر إيه جيري هذه أويا يا شيخ وحا صومري مع زلفة waxa soo maray odayaal akhyaar ah runtii fankana qiimo ku lahay muusikiista sharaf leh aha muusikiistayaal aad u qiimo badan magaalada Muqdisho dadkaas caasimadda dalkayba ahayd Soomaaliya oo dhan laga yaqaan waxa loo lahay ixtiraam aan la soo koobi karin waligay marka waa tamaninayo waa rajaynayo mar inaan ka mid noqdo macna dadkaas qadarinta mudan limited ka ee dadkaas gaareen heerka uu ay ka gaareen fanka iyo muusiga dadkaas waa wax la tamaniyay ahaayeen waxa igu qaalisaneyd marka heerar kasta baa soo maray kamid ahaanshahoodii markii aan aniga soo maray inaan masraxa la fuulay ee aan Janis helay odayaashii riwaayadii ugu horeysay ee iftiin markaan wax ka tumay riwaayad sideeda waxay rabtaa shaqalo ninka bateriistaha ah daraamka ninka tuma bateriga daraamka ninka tuma waa ninka laga rabo shaqar kasta ee masraxa ka dhacdo gacanta saas la yiri iyo dadbaaxa la isku dhiftay bash iyo wash waxa raba sheekada ninka inuu xifdisan yahay waxa markaas soo baxday xataa riwaayadii markaan sheekadii xataa inaan xafidsanahay la wada arkay dadkii jilayaasha ahaa xataa way saacideen waxa kamid ahaa odaygii Soomaaliyeed ee qaaliga ah Cabdi Cali Nuur dadka samooda yaqaaniin magacaas waxa yaqaan oo wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta qof ka tirsan bas u yaqaan Cabdi Cali Nuur Zia Tom al-Dijri Zia Tom odaygaas aad u taageero war awada shaqaladeena waa la socdo wuxuu ahaa nin khatar ah باكورتيسو سعودي سيدو روايدو زي توم كجيرو روايد waxay aad riwaayad dhaaftay dad oo waxa jiray odayaal oo fanka lagu ixtiraam waxa kamid ah Zia Tom Sharif Baldos Salah Sheikh Degdeg adiga odayaal oo aad adiga macna actionada khatar ku ah marka action kana waxa laga rabaa ninka daraamka tumaya laga rabaa gabadhiisu soo canaananaaya amal oo qaylina war adiga maxaa baakoorta la sawtuura baakoortas inay daraamka la socotaan inuu daraamka uu la shaqeeyo raba odayga habeenkii markaan waaydi sida ay tahay shaqalada markaan ula keenay wuxuu yiri war awada see waaya awada bateriida noogu dhiibteen duq waa soo dagay godku soo galay wuu ii hambaliyay macnaha wuxuu yiri wariyaa
وصعتها قوليسو وقربتها قلنا ما شاء الله شغلنا سيفي عم باب ولا صعتها أنا جينا محل نقضي أحمد عبد إيكر معلم كي نمان عيبيننا نقضي لكن هذه قررت يقنع لها محل دي لا أول بوحان إيكر أنا كانوا نقول عيبي نمان وحبنا لسه عنه الروايد دي بحث سنين أيو نسود نحكي الله لا معلم كي نقول دليل لا ولقوا أذيل لها لكن الحمد لله مقعي حين نقطي من لقوا قوليستي أنا مركا أنت صور شأني waxaa aniga igu qarsan marka oo la cogdaday sanad xogaa cogdaday iga gashay adeerkay aabahey la dhashay oo muusikiistayaasha kamid ahaa wuxuu ahaa macallin asagana macallin Soomaali laga ixtiraafo ahaa ixtiraaf haduu fanaan leeyahay la ixtiraafay Muuse Maxamed Cismaan Muuse saxophonist ahaa adeerkayna uu ahaa waxaan isleeyahay kale markii dadkan dad ilahay warcunugan yaa yaqaan warcunugan waxba nooma qaban kare warcunugan muxuu ahaa markii ilaa muu ku taageero asle xool u aamusan yahay isaga muxuu la hadli laayay oo cugdada iga gashayeeyday aabahay dhashata Allahu naxariistay waa ku dacweeyay waxa ay hooyo adeerkay maanta saasa dhacday isagana meeshuu taagnaayo cunuga ana aqaan xataa waa idhi waa ii quuri waay oo xogaa cugdada iga gashay adeerkay ayeeyay markii dambe ay isarkeen oo waxay tiri maxaa wiilku wuxuu ii sheegay in aadan oo meel ku aragtay oo aadan dhihi weysay ninkaan maxaa loogu diri waay ilaa labada maalmood Maxamed ma arkin wuu cogdadaysan yahay miyaa weey maalin kale anoo iska socdo iftiintiina sidii ula joogo asagiina markii waana adeerkay markasta waana salaamay وانا اركي لكن سيدي هور كما ahayn cogdadii way iga yar muuqata habeenada kamida uu tilgacantii iga qabto meel gooni iga xulaa wariya adigu inaan cogdadaysan tahay waa ka warqabaa inaan ku ogeyn amleen waxaan ku sheegaa hadaad rabto inaad noqoto nin fanaan oo isku filan oo kartidiisa ku yimid sartaan wuxuu ka wadaa tiyaatarku ka wadaa sartaan hadaad inaad timaado وريا كرتيدا كو إمو بدي هني إسكو هاللينين وحن كرتيدا هين إسكو هاللينين حكوت بعدا ماشان كرتيدا ده كيني كرتي وحمكوش شجع حتى أنا كنت أقول والله وويل كي وأنا أقدر والله أنا أقان والله حاس هذا ربطينا بملكو تكتملكو متجيس وحاس كوما أنفع النصاص أنا وحنقوله كرتيدا ده كو إمو ماشان سرطان من ذكره والد كانوا يقول دعويسي ولا شيء وأركي waxaan ku sheegaa sababti aan ku taageeri waay hadda ku sheegaa marka hadda ani kaliya maniino ah idageyso marka waxaan ku taageeri waay mataqaana ko waxa ugu horeysa nin qof ku tiirsan hadaad aragto wiligiis wax ma noqdo qof ku tiirsan wax ma noqdo ko taas qalbigaaga gili inaadan qofna ku tiirsanaanin oo farsamadaada iyo raganimadaada ku tiirsanaataan ka rabaa ani hay ku tiirsanaan ana iska isugu tiirsan ani profession-kayga bahashaydan ani hadaan muuqan waayo oo ka adkaa waayo ani halayto adigana waxaad noqonaysaa laba mid noqonay imma waxaad noqonaysaa nin isku filan oo shaqadiisa qabsan karo oo nin isku toosan ah ama waxaad noqonay doqon laga kala tagay labaday mid tahay ee tabartaada ku tushaniyo aniga iga sugin inaan ku taageero oo gacanta ka qabto meeshaan ku geeyo haba u fadhimaan nin baa la ka dhigay isku tashaniyo aniga arinkii wuxuu kooxdan hadaan bari kamaan iskhilaafno khilaafna dhexmaro ma umaleynaa inaad joogaysid wallahi inaad joogin dadkan waa dad aan isugu nimid way qandaraas isugu nimid heshiisaan ku wada joognaa haddii heshiiska ay ka ballanti iiga baxaan ama aan aniga ballanta ka baxo waa isku dhacay jawaana la kala tagaa wax isla joogay ma jiraan adiga waxaan ku sheegaa marka waxaan ka rabaa inaad noqotid nin asaga aqoontiisa ku yimid meeshaan oo kartidiisa wax ku meel marsan karo laakiin nin ani igu jiifo haddaan noqoto weligaa wax ma noqonaysa meelna ma iska bixin kartid waxaan ku sheegaa tabartaada ku tashaniyo nin baa alla kaa dhigay isku tasho aniga arrinkii dib markaan u fikiray waa ii soo baxday waan runay noqotay fiiri waxaa daliil u ah Soomaalida maanta jooga kulligood markii la isku daro nin kasta oo la yiraahdo wallahi wiilkaan adeer baan ahay kan ana abtuu ah kan ana awow ah kan ana aabiisa
انت وحمل صومالي وحقربي وماشا دغوانين هوش اولها انا جوجن ورنين بدا اي سو برتي مرينده iyo bada iyo armeeda nin soo bartay hadii caafimaadka la geeyo la yiraahdo ninkan xaq uma raba inta hagii joogo ninkaas wuxuu caafimaadka muxuu ka qaban karaa waxba nin soo bartay fannimo oo fannaan ah oo wax kasta u dhameystiran yahay iyo qof aan fankaba waxba ka soo baranay alu leeyahay nin fannaaniinta iyo dhaxdal qofkan ma waxba uga bilowneyn maxaa lagu dhaxdalaa maxaa laga dhaafaa hal xabo kama yaqaan hal xabo waxaa lamida qofka maanta falaashka wato falaashow adiga falaash fan lagu noqon karaa war meeshaan tiyaatarkii hadda bal furay haddaad falaash ku tashaneed hadda kuu sheegaa eber ku tashaneed eber wax aad ku tashaneed eber aad ku tashaneed hadda haddii tiyaatarkii la furo muusishinka ay soo wada saftaan oo la yidhaha gees ilaa gees hala wada fadhiisto ee la yidhaha muusig ha loo tumo qofkaana waa heesaa yiri war haye muusigaan kuu bilownay waa kuu tugnay intaan anaga naqiinay aan kuu tugnay hay heesaa lagu yiri sug falaashkii iga maqan maa ileedahay waxaas fan ma noqdaniyo nin ku tiirsan ama qof ku tiirsan weligiis waxa uma noqdo waxaa doonta ahaw shaqada nooceertaa noqoto ama wasaaradaha u shaqeeya ama wakaalad u shaqeeya ama degmo ka shaqeeya ama meel kale ka shaqeeya ama fanka ka shaqeeya kulley haddaadan adiga waxa aad sheeganayso oo wax ka shaqeynaa aad leedahay haddaadan aqoon u lahayn weligaa wax ma noqonayso taas waxaan kaga gudbay sida guud ee soomaalida maanta ay marayso aan dib ugu laabto kooxdayda iftiin waddankan waxaa ka jira fanaaniin dhowr ah iftiin shareero Somali jazz markii dambe durdur aad timid waa markii aan aniga aqliyeystay xilligaas adiga durdur ayaa ku soo indha qaaday okay durdur iyo iftiin iyo shareero iyo Somali jazz dadkaas oo dhan waxay tumayeen riwaayadii banaadiriga ahaa gruubkaas aad tumayeen marka waxaa la rabay